Après le triomphe de la section, Gims se lance en solo avec un premier album. ninkani waa ninkay naftiisa ibsadeen qolyaha shaydaan caabudku ilmonate jooja akhrinta qur-aanka waad heesi kartaa oo keliya ma jebin kartid heshiiskeenna haddii kale wixii ku gadha adiga ayaa mas-uul ka ah ka joog 2 digniin ka joog 3 digniin muxuuse kala kulmay markii uu diiday ee uu yidhi iguma socdo warkiino ma aaminaysid wixii helay raabarka iyo fanaanka caanka ee Gims. maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena sheekada waalida ee uu la kulmay hobalkii fanaankii caanka ee Gims oo ay marar badan asxaabteenu naga codsadeen inaan ka soo hadallo halkii ay ku dambeysay waxa uu hadda ku sugan yahay fanaankani balse ka hor intaa waxaan idinka mahad celinayaa sidaad ugu xidhantiin YouTube-keena Baltahab TV la garay muuqaalka si uu gaadho dad badan subscribe haddii aad nagu cusub tahay si aad u hesho muuqaalada dambe oo aan hubo inay aad u xiiso badan yihiin lana wadaag saaxiibada haddii ay macquul tahay. Sans lot yo pa we pour Gims ka couper code qui te maril la. Li fin ma rabo wax badan inaan iskaga lumino waxay yihiin ilmonate ama qolyaha shaydaanka caabuda balse waxaan kaaga tilmaamayaa iyaga iyo wax dhexmar fanaaniinta aan odhan karno way adoonsadaan halka kaliya ay ka soo galaan bilowgaba waxay fanaanka tusaan inuu joogo leefalaad u hooseeya waxaanay u tilmaamaan oo u sheegan kuwa ay geeyeen xidigaha iyo ceerka waxaana ugu weyn oo qofka gebi ahaanba ku adoonsadaa naftiisa lacag caanimo ay leeyihiin annaga kaa dhigi karna waxa aad doonayso caan inaad noqoto hanti inaad hesho iyo gebi ahaanba magaca oo ah waxa kaliya maanta loo ordayo intuba annaga gacanteeda ayay ku jiraan adduunkan annaga sanka kaaga xidhayna ee adugu keliya warkayga qaado oo noqo qofna hoggaansan haddaanu nahay qolyaha shaydaan caabudka ama ilmonate loo yaqaan bien legisfel comme ça n'opinion pam aucun monde pap j'aime prendre bagay comme ça pour blague waxaase ka dambeeya cadaab yar ciqaab iyo sidoo kale adoonsi aan marnaba loo qarinaynin fanaanka marka uu si dhaba u dhex galo balse bilowga loo dadayo taasoo looga dhigayo janno yar nolosha oo dhan gebi ahaanse la dhex dhigayo god dhuxul iyo dab ah taasoo uu dareemi doono fanaankana si dhaba aynuuga dheehan doono noloshiisa haddaba sidee ayay ku hanteen fanaankan naftiisana ay ku iibsadeen muxuuse kala kulmay markii uu isdareemay raabarka iyo fanaanka caanka ee Gims ki wel pa ka supporter encore la lan château kay grand moun la tout fâché pour haddaba fanaankan ay mas-uuliyadda gacanta ku dhigeen ay iibsadeen gebi ahaana u hibeeyey naftiisa asalka magaciisa waxaa la yidhaahdaa Maître Gims balse wuxuu ku caanbaxay si weyna loogu yaqaanaa Gims waa raabar fanaan iyo songwriter u dhashay waddanka France ninkan waxaa albankiisii ugu horreeyey si gaara ugu sii daayey sannadii 2013 waana nin kale heesaha ay ka midka yihiin heesta My Beauty iyo sidoo kale heesta cajaa'ibta badan ee uu bixiyey uguna yeedho Only Your Feet iyo sidoo kale heesa kale oo gebi ahaanba adduunka iyo daafaha caalamka qabsaday waana fanaan si weyn looga yaqaana gudaha France iyo caalamka oo dhan balse waxaan u baahanay keliya inaynu ka hadallo mawduuciisa ku aadan isaga iyo xidhiidhka dhex maray qolyaha shaydaan caabudka iyo ilmonate taasoon huba inaad gebi ahaanba la tacajabi doonto qaabka ay wax u dhacayaanna runtii aad ka murugoon doonto même moun na cérémonie yo ouais ça yo prend une machine yo courir des mise tout pour yo qu'apprendre et continuer sacré Gims wuxuu lahaa hal xaas balse markii uu muslimay waxa uu guursaday xaas labaad waxaana ay kala yaalaan waddanka Morocco iyo gudaha France haddaba aan gudagallo sida ay ku kulmeen mas-uuliyadda iyo bilowgiiba noloshiisa sida ay ku hanteen innagoo sharaxayna muuqaal uu ka sameeyey qisadiisa raabarkan iyo fanaankan lagu naanayso Master Sunglass ama fanaanka xataa xidha muraayadaha madow xilliga habeenkii maadaama uu fanaanku u noolaa si normala bilowgii noloshiisa waxaa dad badani u ammaaneen una sheegeen qolyaha mas-uuliyaddu inay fanaan kasta oo maanta jooga xidigaha ama gebi ahaanba gaadhay hawada sare ay gacantooda ku hayaan
iyagoo ay fangareeyaan sidoo kale saxaafadda caalanka iyo indhaha adduunka ay u soo jeediyaan dhankiisa taasoo ka dhigaysa star iyo xidig gebi ahaanba adduunka jooga waxaana loo ammaanay inuu gacantooda galo islamarkaana uu heshiis la galo qolyaha maasuuniyadda haddaba ugu dambayn gimis wuxuu la soo hadlay qolyihii maasuuniyadda waxaana uu la yeeshay kulankaas oo ay ku ballamiyeen guriga qaaska ee lagula ballamo ama laguma kulmo fanaaniinta iyo dadka qaaska ah kuwaasoo leh magac kuna soo biiraya tiimka shaydaan caabudka waa guri wada muraayad ah oo aad u qaaliya kaasoo albaabkiisa lagu xardhay welcome to the paradise ku soo dhowow jannada. It was at this moment that he knew. nimankan shaydaan caabudka ama maasuuniyadda waxaa dhaqan iyo labis u ah dhar isu eg sida suudhadh wada madow ama dhar wada casaan ah waana maryahay caanka ku yihiin ilamunaydko gimis waa uu la jooga waana kulankoodii koowaad isbarasho iyo hadal baa dhex maraya wakhtigan xoogaa isfahan iyo kaftan dhex maray gimis iyo qolyihii shaydaan caabudka iyo ilamunaydkii waxaa u timi gabadh yar oo qurux badan taas oo wixii rag ah ku shaqalay inay u soo dhowayso ama geyso xafiiska ama qolka kontaraagyada iyo heshiisyada lagu kala saxeexdo walow ay qurux badan tahay haddana waxaanad eegi karin gebi ahaanba indhaheeda u fiirso waa indho shaydaamiya gebi ahaan aad mooday shuqullo kale loogu talagalay waan indhahaagu hayn karin. Ça montre nous comment depuis l'aile. markii ay gaadheen goobtii heshiiska waxa uu yimi madaxii kontaraagyada heshiisyada samaynta qolyaha maasuuniyadda kaasoo u qaabilsan inuu dadka heshiisyada la galo gimis waa uu yaaban yahay wakhtigan qaabka loola dhaqmayaana waa qaab heer sare ah xataa ninkii heshiiska uu la gelayay isaga u baahnaa ayaaba ka soo hor ordaya kaasoo leh welcome here. gabadha yar inta rag wada hadlayaan sanan baad moodaa oo edab bay ku taagan tahay booskeeda shaqadeeduba waa inay aamusnaan iyo dhaqdhaqaaq la'aan ku taagnaata bartan keliyana ay keento qofka goobtan. xafiiskan haddii aad u fiirsato gidaar kasta uu leeyahay waxa ku dhegan calaamadaha ugu caansan ilimunaydka waaba goobtii saxda ahayd ee lagula gelayay heshiiska shaydaanka isagu si ma dareensana waxaa markaa ugu muhiimsan heshiiska oo bilowgaba ku muuqanaya in loo dhiibayo calool qof yar ama mindi yar taasoo la rabo qofku qayb ka mida xididadiisa ama xididkiisa gacanta inuu sag ku siiyo kadibna dhiigga ka soo daata uu ku saxeexa buugga saxiixyada iyo heshiiska waxa uu sag ku siinaya xididka gacantiisa markuu dhiig ka soo duulana waxuu saaraya goobta saxeexa looga baahan yahay ama signatureka waana calaamadaha ugu waaweyn ay sameeyaan qolyaha ilimunaatiga ama shaydaan caabidko jidhkaaga dhiig ka keen hooyada dhiiggeeda soo cab kitaab ku joogso waxyaalahani waa waxyaalahay caanka ku yihiin gebi ahaanba ilimunaydka ama shaydaan caabidko. maalinkaas ayaa waxa u bilaabmay gimis nolol ka duwan noloshii hore ee iska caadiga ahay taasoo isagu lahaa maamulkeeda kula noolaa nolol yar oo noormala taasoo uu la kulmayo dad caddaan oo magac leh inuu goob alla goobta uu doonayo show ku soo qabto fanaaniinta caalamkii uu ku riyoon jiray inuu heesa la soo sameeyo sida fanaanka caanka ee liil weyne qaar kaloo caana iyo gebi ahaanba in loo hor ordo si kasta uu doonayo balse waxaa jira arrin kaa daahan oo markan isagoo xataa aanu dareensanayn. Moun là tout fâché pour dire ça y a fait là pas bon pour ça la pas annuler contrat mais pas ninkan sidaan idin sheegay baa hal arrin ayaa ka maqan oo ah farxadda waxaad arkaysaa isagoo farxaya ama qoslaya shaashadaha iyo goobaha telefishinada hortooda balse muruga ayaa oo dhan waxa uu ku jiraa xaalad madowa iyo niyad jab waxaanu la kulmay nolol la wada kaantaroolayo ha bixin ha hadlin isha uu naga daawo xitaa sida idiin muuqata iyadoo oo la wada qoslaya ayuu sida qof yaroo laga keenay tuuladii qudhac dheer isha uunu ka daawanayaa
yaab iyo amakaag nololeed ayaa hoostiisa gebi ahaanba uga qarsoon. guudkiisuna waa uu qurux badan yahay markan ma raaxaysan karo. gaadhigiisa marka uu fulayo farta ayaa loogu yeedhayaa. gabadhiisa iyo faamilkiisa isagoo la jooga ayaa isha lagala hadlayaa. gebi ahaanba waxaa ka luntay raaxadii iyo noloshii quruxda ahayd, waana dhaqanka ay leeyihiin qolyaha shaydaan caabudka haddiiba uu qofku gacantooda galo. ugu dambayn maxaa uu la kulmay hoobalkiiyo fannaankii caanka ah ee Gimis. No, God, please, no! Gimis hargalay ayuu go'aansaday gebi ahaanba inuu ka hor yimaado qolyaha shaydaan caabudka una sheego inaanu amarkooda iyo arrinkooda ku socon. balse maxaad filaysaa meeshan inay ka dhaceen? waxuu ka soo horjeestay oo uu la dagaalamay gebi ahaanba qolyihii kamarada ka duubayay iyo telefishinkii. waar fadhiiso, maya fadhiisan maayo. waar fadhiiso, hooyadiinu sheega fadhiisan maayo. sida idiin muuqataa gebi ahaanba waxay isku dayayaan inay xoog ku fadhiisiyaan, balse waa uu diidayaa oo dabadda uga soo boodayaa isagoo amarkiisa ku soconaya. Mr. Gimis ugu dambayn wuxuu bilaabay Gimis inuu sameeyo wax kasta oo khilaafiyo fikirkooda qolyaha masuuniyadda ama shaydaan caabudka. waxaana ugu horreeya uguna caansan waxyaalaha uu bilaabay akhrinta qur-aanka, taasoo obasid ku ah qolyaha shaydaan caabudka. weliba waxaa kaloo uu ku daray intaasi ereyo uu mar walba ku dhiirigelinaya dadka isagoo ale xor noqda. feel free, noloshiina idinkaa xor ah ayaan laydinla maamulin. taasoo ula jeedo ka carar oo ka fogaada qolyahanu isagoo heshiiska la galay ahna maasuuniyadda. waxaa markaas u caddaatay ninkan sida uu rabo inuu fashiliyo arrinkooda maadaama uu ka baxay gacantooda. markaas laba arrin bay samaynayaan maasuuniyaddu oo kala ah inay dilaan qofka iyo inay ku kaliifaan isagu inuu xataa gacantiisa isku dilo kadib markay nolosha nacsiiyaan. haddaba sidee ayay u bilaabayaan arrintaas? waxay ku bilaabeen Gimis inay ku xiraan saxaafaddii gebi ahaanba ay ku diraan una sheegaan shaqsigani inuu yahay qof aan hagaagsanayn. ilaa waa saxaafad ay lacag siinayaan oo ay doonayaan ninkan inay ceeb iyo foolxumo ka faafiyaan oo ay magaalada u geliyaan. madaxdii qof kasta oo la dhagaysto iyo dhammaanba dadka ixtiraamka lagu lahaa agtooda ayay ribood ka wada gudbiyeen siiyana lacagta ugu sarraysa, maadaama ay nimankani gacansaar la leeyihiin cidda ugu sarraysa. qof kastana ay lacag iyo adduun siinayaan. heer waxay ku kaliifeen saxaafaddu ay kaga hor timaado suuqa oo yidhaahdeen ma caafimaaday, xanuunkii ma ka soo kacday Gimisow, waar baryahan waad jiftay ma hagaagtay. ilamaa uu gaadhay inuu la dagaalamo. intaasina waa intii ay doonayeen. waxaanay rabeen awalba inay ku tilmaamaan qof waalan si sumcaddiisu ay dhulka ugu dhacdo oo ugu dhaca sharaf darro, cimaamaddana ay dhulka ugaga tuuraan. Mr. Gimis markii uu arrintii u adkaysan waayey wuxuu si ka foolkafoolo u aaday xafiiskii kontaraagyada iyo madaxa heshiisyada. waxaana uu sheegay inuu ka baxay heshiiskooda gebi ahaanba aanu hayn imika laga bilaabo qof ka mida iyaga. markaasi kadib maxaad filaysaa inay ku sameeyeen fannaankii iyo hobalkii reer France ee Gimis? waxay sameeyeen wixii laga filanayay oo aynay 4 jaafaajuglo u diraan oo ay dilaan ama ay afduubtaan. balse marka nasiib wanaag waa ay afduubteen waxayna geeyeen hoolka ama guriga caanka ah ay ku magacaabaan La Casa del Diablo oo ay qofkii la dilaya geeyaan ahna guriga caanka ee shaydaanka. acuudu billaah. qofka waa ay qabanayaan waxayna geenayaan guri ku yaalla buuraha dhexdooda. gurigaas uu leeyahay shaydaanku. halkaas ayaa qofka ay ugu samaynayaan shaydaanka qurbaan iyagoo ku raali gelinaya dhiiggiisa oo ay ku biraynayaan calaashan waa ay ugu laxaynayaan. Avec le temps, il prêtait serment, Will fait tout bon, mais tout le monde oublie. nasiib wanaagse waxaa sheekada la socday nin markii la soo afduubtay arkayay oo daacada gebi ahaana isagoo keliya lacag ka qaato ka mid ah shaqaalaha goobtan, balse aan jeclayn ninkana taageero weyn u ah fanaanka ee Gimis. markaasi waxuu telefoon garinayaa ninkan gabadhiisa iyo fanaanka Gimis waxaana uu sheegayaa inay soo qaado alaab
sida sharaabka faantada iyo waxyaalo kale oo ay ku soo dhex riddo midi kaasoo uu doonayo inta uu fanaanku jiifo afartaadinka xidhan yahay ee uu ku dhex jira barkadda yar ee swimming poolka ama dabaasha halkaasoo la rabo in lagu bireeyo uu u soo dhex galo isagoo dharkooda xidhan maadaama uu shaqaalaha ka mid yahay sidaasina uu xadhigga kaga jaro oo u baxsado fanaanku khiyaanadana waxa uu soo oogayaa si uu u badbaadin lahaa fanaankan sida idiin muuqataa intii qiiqu socday iyo dabaaldeggii ay u samaynayeen ay ku raaligelinayeen shaydaanka ninkana ay doonayeen inay ku bireeyaan 2 minid kadib ayaa waxaa soo dhex gelaya ninkii labiskooda sitay balse daacadda ahaa sidaasina ayuu kaga jarayaa xadhigga gimisna waa uu boodayaa oo waa uu cararayaa markaasi ayay arkayaan waxaan isku dayeen inay soo qabtaan balse mootadii gabadhu wadatay ee dabadda taagnayd ayuu sidaasi ku raacayaa ninkii xadhigga ka jiran cidima arkayso oo dadka ayuu ka mid yahay waxaanu sitaa labiskooda maxaad filaysaa markan kadib inay dhaceen gimis waxau raacayaa mootadii gabadhiisa ay wadatay sidaasina ayuu ku fogaanaya oo ku gelayaa ayada iyo kaymaha sidaasina ayuu kaga badbaadayaa qolyihii shayaadiinta iyo ilmuneydka waxaanu ahaa muuqaalkani miduu si qaasa uga sameeyey qolyaha ilmuneydka iyo isaga wixii dhex maray kadibna waa uu islaamay diintiisii iyo noloshiisa quruxda badnaydna ayuu sii watay waxaanu ku noqday noloshii xorriyadda ahayd ee ka madax bannaanayd ee ilmuneydka iyo shaydaanka sidaasina ayuu uga badbaaday kantaroolkii iyo madax iskaga taaggii caanimo kasta iyo magac kasta uu helayna wuxuu ka doorbiday nafiska iyo kantarool la'aanta waxaana la sheegaa markii uu duubay muuqaalkan kadib inuu naftiisa iyo noloshiisuba ay halis gashay fanaankii gimis weliba iyadoo ay u dhexaysay muddo markii ay qisada ku dhacday iyo markii uu muuqaalka duubay haddaba daawade sidee ayaad u aragtaa qisada xogtan horanba u maqashay sideese ayaad u aragtaa nolosha uu galay bilowgii iyo hadda nolosha uu dib ugu soo noqday raabarka iyo fanaanka caanka ee gimis fadlan fikirkaaga taladaada iyo sida ay kula muuqato cidda aad jeceshay inaan kaaga soo diyaarino muuqaalo sidana intaba noogu dhaaf qaybta comment sectionka ha ilaaweyn inaad like garaysa muuqaalka si uu gaadho dad badan sabskraibta haddii aad nagu cusub tahay si aad u hesho muuqaalada dambe lana wadaag saaxiibada haddii ay macquul tahay